Haayada diyaargarowga Aafooyinka ee kaydka raashinka ee Somaliland ayaa deeq raashin ah oo gaadhaysa ku dhawaad ilaa 1800 oo qoys ka qaybiyay deegaanada kala duwan ee gobolka Saaxil waxaana raashinkaasi laga qaybiyay degmooyinka Berbera, Madheera, Godaweyn iyo sidoo kale deegaanada Bulaxaar, Laasciid, Xagal iyo degmada Sheekh iyo sidoo kale deegaano hoos yimaada degmada Berbera waxaana raashinkaasi lagu wareejinayay qaybo kamid ah wasaaradaha horumarinta caafimaadka, waxbarashada iyo sidoo kale dawladda hoose ee degmada Berbera kuwaas oo u qaybin doona dadka jilicsan ee ka shaqeeya hay'adaha gudoomiyaha hay'adda diyaargarowga Aafooyinka ee kaydka raashinka ee Somaliland Faysal Cali Sheekh ayaa ka warramay raashinkan ay ka qaybinayaan guud ahaanba gobolka Saaxil aan u sidnay raashin aanu doonayna inaanu gaarsiino dadka isbitaalka ku jira iyo dadka oo kala noqonaya isbitaalka guud 40 qoys oo raashin aanu u sidno isbitaalka dhimirka ama maskaxda oo 30 qoys u sidno isbitaalka TB-da oo 30 qoys raashinkoodu sidno iyo dadka xanuunka HIV/AIDS oo 50 qoys u sidno taasoo isku noqonaysa hadda raashinkan aanu imika halkan isbitaalka guud aan ku wareejinayna 150 qoys oo raashinkood oo isugu jira 7 nooc oo raashina oo runtii waqti adag lagu jiro oo isleenahay runtii isbitaalada iyo dadka caafimaadka waxbay ka tari kartaa aanu imika ku wareejinayno isuduwaha gobolka wasaaradda waxbarashada iyo sayniska raashin dhan 149 qoys raashinkood oo u dhiganta runtii macallimiin 149 macallin oo bilaa mushahara oo ah kuwa aan mushahar ka qaadanin isuduwaha wasaaradda caafimaadka ee gobolka Saaxil Dr. Bashiir Diiriye Jaamac iyo sidoo kale agaasimaha cisbitaalka Berbera Caasha Aadan Guuleed iyo qaar kamid ah hay'adaha raashinkan laga qaybiyay ayaa ka mahadnaqay raashinkan ay soo gaarsiisay hay'adda diyaargarowga Aafooyinka iyo kaydka raashinka ee Somaliland ka gudoomayna hay'adda diyaargarowga gurmadka iyo raashinka 150 qoys raashinkood kuwaas oo ay kala leeyihiin dadka qaba xanuunka qaaxada xanuunka dhimarka iyo xanuunka HIV-ga waxaan ugu ducaynaynaa cidii soo deeqday gudoomiyahaba in Ilaahay miisaanka xasanaadka ugu daro annagana waajib ahaan waxaan saaran in dadkii xaq u lahaa loogu talagalay la gaarsiiyo waxaan halkan kula wareegnay raashin loogu talagalay macallimiinta bilaa mushaharka 149 qoys aan gudoomiye sidaa aad ugu gudoonsiisay halkan ayaan annaguna u gaarsiinaynaa waxaan maanta halka sidoo siduu sheegay aan ku wareejin doonaa dawladda hoose raashinkii caawimada ahaa ee Sacuudigu ina siiyeen taasoo aan ugu talagalnay in dawladda hoose ay dadka danyarta ah ee magaalada iyagu qaybiyaan oo aan halka maamulka dadajinay maadaama iyagu degmada ka mas'uul yihiin waxaan ugu talagalnay maadaama mucaawinadu iska kooban tahay dadka ugu sii liita way noo diiwaan gashan yihiin dadku iyagoo dabaqaad kale laba noo diiwaan gashan marka dadka ugu sii liita oo ah dadkii waala dadkii curyaaminta iyo indhoolayaashii saddexda qaybood baan ugu talagalnay kulay tani waxay qayb ka tahay dadaalka ay markaa hay'addu wado ma garatay run ahaantii bal sidii ay waxa weeyaan hay'addu mandate-keeda ama mas'uuliyadda qaranka u hayso markaa maaragtay waxa weeyaan marka laga imaado ka hortagga iyo diyaargarowga Aafooyinka kala dabiiciga in haddana waxa weeyaan gurmad ay keento oo wax gaarsiiso kolba dadka jilicsan Ilaahay baa waxa weeyaan waxaya oo waxa Ilaahay baa dadka wax gaarsiin kara gudoomiye ku-xigeenka hay'adda ayaa isaguna sidoo kale raashinkan oo kale ka qaybiyay deegaanada Madheera iyo deegaano kale oo hoos yimaada waxaana uu sheegay in ay gaarsiiyeen dadka jilicsan ee ku dhaqan deegaanadaasi goobtan aanu hadda ku sugannahay bixin waxaan soo gaarsiinay raashinkan aad aragtaan waxaan ku wareejinay raashinkii halkan goobtan loogu talagalay oo 40 qoys ah dadka raashinkan la gaarsiiyay gaar ahaan dadka nugul ayaa ka mahadnaqay sida loo soo gaarsiiyay raashinkaasi maadaama ay soo galayso bishii barakaysneed ee Ramadaan waanu halkan ugu gala wareegnay 40 qoys oo raashin oo anaga dadkii ku wareejinay imika siinay tulada leemoolad deeqbana soo gaaray muxuu ahaa raashina oo la soo gaarsiiyay Sacuudiga iyo Jamhuuriyadda Somaliland ayaa la soo gaarsiisay Ilaahay baan u mahadnaqaynaa muxuu ahaa wixii deeqdaana soo gaarsiiyay mahad bay leeyihiin maanta halkan ugu mahad celinaynaa in boqortooyada Sacuudiga oo deeq raashin ugu deeqay qaranka Somaliland annagoo hay'adda kaydka raashinka qaranka waxaanu gaarsiinay tuulooyinka Dhaymoole iyo Buraaqa waan halka raashinka ugu qaybinay raashinkan mucaawinada ah ee laga qaybinay deegaanada kala duwan ee gobolka Saaxil oo qayb ka ah raashino ay dawladda Sacuudi Arabiya ay Somaliland ugu deeqday ayaa laga qaybin doonaa deegaano hoos yimaada degmada Sheekh iyo sidoo kale degmada Berbera maalmahan fooday nagu soo haya
mukhtaar cabdiraxmaan maxamuud telefishinka qaranka Somaliland berbera